shaqa doon ma tahay shaqo oo barakaysa ma raadinaysaa shaqo xalaala ma raadinaysaa dhegayso qisadan ducadaana akhriso wiil waxaa jiro jaamacad ka soo baxay cilmiga busineskana soo bartay 30 shirkadood uu albaabka u garaacay macnaheed waxa way maalintiiba hal shirkad uu tagaa warqaday ka qaadayaan faylkay ka qaadayaan resumegay ka qaadayaan meeshay ku tuurayaan wax soo wacaya ma laha maalintii 30aad markii meel kasta ay ka soo xirantay oo guriga ku soo laabtay hooyadiisu u sheegay waxay hooyo macaani waxbaan rabaa inaan kuu sheego waan dhibanahay maxaa waay hooyo maxaa ku haysa anoo saas wax u bartay anoo heerkaas cilmigii iyo practice xitaa sameeyey oo wixii aan ku shaqayn karo shirkad ay ogolaanaysa ma laha markaasaa waxay dhahay hooyo albaabada bini aadamka waa fiirisay kii ilaahay ma fiirisay hooyo maxaa ula jeedaa markaasaa waxay dhahday waxaan kaa rabaa ilaahay xaggiisa inaad aaddo oo salaada kadib waa dadaashay sooma shaqadii waa raadisay sooma wax kula soo xiriiraya ma laha sooma ilaahay xaggiisa aad shaqa dambe ha raadin fadhi bilow digriga samee marka micnaheeda ma ahan fadhiga qofka waxaa la rabaa marka asbaabta inuu la yimaado marka asbaabta la yimaado ilaahay inuu isku xiro culimmadu waxay dhaheen markii oo tawakulka samaynaysa waxaad ilaahay u tala saaranaysaa iyadoon sabab jirin oo kale isku dhiib 100% ilaahay tala saaro markaad asbaabta samaynaysid waxaad u samaynaysaa iyadoon tawakal jirin oo kale macnaheed waxaa loola jeedaa meesha ugu dambaysa wax gaarsiin karta gaarsiiya dadaalka uu gaarsiiyey 30 maalmood calaa kulli xaal wuxuu bilaabay wardi maxaa wardigaas u akhrinayo xasbuna allah wa nicma alwakiil wardigaas u akhrinayo hooya ugu naseexaysa hooyo macaan wuu waday maalinta saddexaad xasbuna allah wa nicma alwakiil 3 shirkadoodaa soo wacday shirkadda kasto markay soo baxayso waxay leeyihiin waa kuu baahannahay haddaan kuu baahannahay waagi hore uu baryo tama wuxuu dhahayay shaqada noocii doonta ahaato iyo wuxuu dhahayay mushaarka noocii doonta ha ahaato waa ka shaqeynaa meelaha uu tagay saasuu dhahay hadda isagaa weydiinaya wuxuu leeyahay intaas ma rabta intaas ma idinkuugu shaqeynaa iyagaa la gorgorta waxay leeyahay maya intaas xoogaa ma naga dhimaysaa haddana telefoon kalaa soo dhacay suga qoladuu leeyahay waa idinku soo celinaya qolo kale waxay leeyihiin anagaa ku qaadanayn meeqo adii wax sheego meeqaa rabtaa waxaa lagu gorgortamayaa khibraddiisii iyo shahaadadiisi xasbuna allah wa nicma alwakiil maxaa ka qaadanaysaa duruus ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalka samee laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa aad wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu